aan ku hormaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xalay waxa uu booqday qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho halkaasi oo la dhigay dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. ra'iisul wasaaraha oo la hadlay warbaahinta waxa uu rajeeyay dhaawacyadaasi inuu eebba u boogadhayo waxa dhinaca kale bulshada Soomaaliyeed oo ugu baaqay in dawladda ay si wada jir ah ula shaqeeyaan. waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in wali dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadayaan xarumaha dawladda isla markaana ay waxyeello ka soo gaaraysa dadka rayidka. dawladdiisa ayaa waxa uu sheegay inay ballan qaadayso in si wanaagsan ay ammaanka u sugi doonto isla markaana ay si dhow ula shaqeyn doonto waa sida hadalka uu dhigay shacabka Soomaaliya. Xasan Cali Khayre waxa uu sidoo kale sheegay in dhaawacyadan si dhow ay u ogaan doonaan xaaladooda isla markaana ay mid ula socon doonaan waxa geesta kale ciidamada ammaanka uu sheegay ama uu ugu baaqay in ammaanka caasimadda ay si aad u adkeeyaan isla markaana ayna soo noqnoqon dhibaatooyinkii shalay dhacay kuwa lamid ah. dadka dhaawacmayna waa loo gargaari doonaa kuwa magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya wax looga qaban karana waxba looga qaban doonaa kuwa aan looga qaban karinna waxaan ku caawin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan ku soo daaweyno dalka dibadiisa. dawladda Soomaaliyeed marna ma nasanayso inta dalka ay dhibaato ka jirto inta aan ka adkaanayno kuwa caadaystay inay shacabka gumaadaan. qof walba oo Soomaaliyeed oo dhaawac ama dhib soo gaarana inta amnigu 100% ka noqonayo waxaan ka shaqeyn doonaa inaan u gurmano si walba aan ugu gurman karno ama dalka gudihiisa ama dalka dibadiisa. mar labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku geeriyooday eheladoodii waxa kale Ilaahay u baryayaa kuwa ku dhaawacay maanta Ilaahay inuu si dhaqso ah caafimaad u siiyo. waxa dhacay maanta wuxuu ahaa qarax ay geysteen qoladii arxaan laawayaasha ah oo dadka baabi'iya oo dadka dhaawaca oo shacabka xukuumada oo xoolaha shacabka dhibaateeya oo dhaqankoodu uu yahay Soomaaliye inaanay jirin ka soo horjeeda jiritaanka iyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. alxamdulillah General Bashir iyo dhammaan ciidamada kale ee Soomaaliyeed waxay mar walba ku howlan yihiin kana shaqeeyaan inay badbaadiyaan dhibaatooyinka kuwaas ay geysanayaan meesha iyagu dhibaato ka geystaan annagu dadka Soomaaliyeed ayaan u arxan falnaa meesha dalka ka dumiyaan dalka ayaan dhisnaa meesha midnimada ka baabi'iyaan midnimada ayaan raadinaa meesha ay hoog u horseedaan barwaaqo ayaan la raadinaa shacabka Soomaaliyeed. waxaan rajeynayaa marka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay nagala shaqeyso dadaalka aan wadno oo looga hortagayo in la soo afjaro kuwan caadaystay inay gumaadaan shacabka Soomaaliyeed. alxamdulillah ciidamadeenu way dadaaleen bilihii la soo dhaafay waxaan u ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed in dadaalka la sii wadi doono la sii dardar geli doono.